kulankan uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed ayaa waxa goobjoog ka ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah maamulka gobolka Banaadir oo horkacaya gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidanka booliiska iyo nabad sugidda qaranka waxaana ujeedkiisu ahaa hirgelinta go'aankii golaha wasiirada ee ku aadanaa dardargelinta amniga iyo in la iswaafajiyo wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno lagu kala qoray inay kormeer iyo ka warqab u yeeshaan degmooyinka gobolka si ay gacan u siiyaan maamulada iyo saraakiisha amniga falanqayn iyo talooyin wax ku ool ah oo la isdhaafsaday kadib kuwaasoo dhammaantood hiil u noqonaya inuu hor u kac sameeyo amniga caasimadda ayaa waxaa qodobada la islaaf gartay faahfaahin ka bixiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre oo sheegay in maalmaha dhow isbedel muuqda laga dareemi doono magaalada Muqdisho. ahmiyadda shirkan galabta wuxuu ahaa laba arrinta koowaad in xukuumadda golaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee gobolka Banaadir ay isku bartaan waajibaadna kala qaataan la xiriira amniga. qasdiga labaad wuxuu ahaa in go'aan ka soo baxay golaha wasiirada xalay shir ay lahaayeen loo soo gudbiyo مسؤولينta heer degmo iyo heer gobol ee gobolka Banaadir qasdigu labadaas arrin oo ahaa hawshana weli way socotaa waxay isku yimaadeen mas'uuliyiinta heer degmo heer gobol iyo heer qaran in amniga xamar laga wada tashto wax qabad aad iskugu dhowne wax laga qabto cadowgu wuxuu nagu soo weeraray caasimadda xamar waxay isku dayeen inay weeraraan simbalkii astaantii qaranka ee ahayd halkii madaxtooyada dalka Soomaaliyeed laga maamulay goolkeenu wuxuu yahay in cadowga xanuunsado goolkeenu wuxuu yahay in muddo gaaban ummadda Soomaaliyeed laga dul qaado cadowgan muddada dheer ku habsaday wada tashiguna arrintaas ayuu ku wajahnaa haddii idmane waqti dhow waxaad maqli doontaan xanuun adag oo cadowga ku dhaco Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed intaba samarkii dhumiyeen waqti dhow waxaad maqli doontaan isbedel yani baaxad weyn oo ummadda Soomaaliyeed farax geliya wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sanadkan 2014 u asteeyay inuu noqdo sanadkii uu gacanta al-shabaab ka bixi lahaa dhulka farakutiriska ah ee ay joogaan ayaa waxa laga dareemayaa gobolada dalka intooda badan abaabul dagaal oo xoog leh kaasoo ay harkacayaan ciidanka xoogga dalka oo garab ka helaya howlgalka AMISOM iyadoo taasina ay keentay in kooxda al-shabaab ay falal argagixina ka sameeyaan meelaha qaar si ay u jahwareeriyaan dadka shacabka ah oo ay taageeradooda horay u lumiyeen Bashiir Khaliif Gaani SNTV Muqdisho.